afka hooyo waa hodan haddii hiila uu helo buu yidhi hal iyo laba maxaad oran lahayd hadal macaantii bal aynu eegno afka soomaaliga waa af hodan ah sidaan taxaneen casharadeenii hore kusoo qaadanay waxaana tusaale noogu filan maanta oo caawa oo kale magacyadan roobka adduunyada roob buu ka yahay laakiin soomaalidu waa uu kala duwan yahay roobka magacyo inuu kula leeyahay ilaa 20 magac ayaa halkan inoogu xusan waa inta hadda aniga aan aqaano aan dadku u sharxi karo laakiin in kale oo ka badan ayaa jirto oo laga isticmaalo gobollo kala duwan Soomaalidu waa kala gobol roobka waxa lagu saleeyaa laba mid ama guga iyo dayrta iyadoo sidaas ay haddana waxa lagu saleeyaa xilliga roobkaas uu daaymo galaba ma subax ba ma xilliba habeen ba ma maalin ba ayaa lagu saleeyaa mar waxa kamid marka magacyada roobka la isticmaalo waxa kamid ah roob loo yaqaan miraale طبعا roobka daayuu kamid yahay miraale ayaa leeyahay miraale waxa kale kamid ah roobkaas miyay ba kamid ah sagana ama miyay dadka meelaha qaar dhahaan mahiigan soo kale waa magac roobeed tumay waa magac roobeed طبعا dadka yaqaana hays waa magac roobeed hay xagaa soo kale waa magac roob todob waa magac roob biyadig waa magac roob circade waa magac roobeed isagana soo kale duufaan xilliga uu daay baa laga hadlayaa waa magac roob hogol soo kale waqtiga waxay ku xiran tahay gufaaco waa soo kale roob soo daata xiif soo kale waa magac roobeed shuux waa la mid xiif iyo shuux iyo fushuuq iyo tiitiix طبعا waa laga inay isku mid noqdaan ereyadaas laakiin goboladu way kala duwan yihiin balse waa magac la isticmaalo cadar soo kale waa roob yeelan laxo waa roob magaciisa lix waa roob magaciisa ilaahay kuma danaada karan waa la mid magac kale way asaguna fushade waa la mid magac kale doogash dhammaan intaan idin sheegay 20 kan magac waxa loo isticmaalaa magacyada roobka طبعا way jirtaa in ka badan intaan aniga aqoon laakiin waxaan ula jeedaa kaliya in waxaad ka fahantaan in af Soomaaligu uu yahay af hodana daliil ay kugu filan intaan oo dhan in loo isticmaalo magac roobeed ama xilliga ha ahaado uu ku saleysan yahay uu daay ama waqtiga uu daay labada tiir lagu saleeyay laakiin waa magac roob oo dadka Soomaaliyeed ay yaqaanaan gobollo badan laga isticmaalo hadaba haddii wax dheeri ay jiraan wadaad ogtahay hoos noogu xus si listigan u gelino dadka ay ugu faa'iideen insha Allah taala ma stay lana soco taana cashkeen xiga ee hodantinimada afka Soomaaliga